بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داودياش أنو جعلنا يوم البود جوكتان يسوى البو مقال كيغا دولا سعوتان كسو دوادا برنامج غارة أو كساب سندود علميات لغو قبتي جامعة انديان اوشيان يونيفرسيتي كاس أو لغا الرنسان يي هنانكا دورشو كدعي كرا دالكا سوماليا سنة لبدا كن لحية طبانكا صدق هلا أنا جيبينه هم فهمنا ضد بدن وكوجه ورسيين وحلا هلا أنا أيه نواي وحاول مهد علينا يا مرتشرفتنا قاصين لبضح الدبان ونقل سوق قاعدته الدبان عبد القادر الشيخ إسماعيل هي الدبان أحمد علي يقله وكان ومهد علينا وقت جود الناس هورين بروفيسور عتش محمد علي الحسن ونقل قاعدان دون برنامج أو إنديا أوشن تيم كا وهذا المركب هو رأس إننا نوقف تيميان الدبان هذا فرصة وسيلة أنا قبل يا عبد القادر الشيخ إسماعيل نوع نقول دون تدور شهر 2016 كنا دعيسو يوميش عن هذا الجوب نسامكو إيمان إنه وحنا وتطلع إن شاء الله talooyin badan ama soo jeedino badan oo la isdhex marinayo oo maadaama waygii la hayay ama jidkii la hayay waa laga lumay xaqiiqda markaan idin sheegno maadaama uu soo xirmay oo hadda la iska soo horjeesaday oo xagee aadna la isweydiinayo way tiro badan tahay marka talooyinka soo dhacaya aad bay u tiro badan yihiin marka sidaas daraadeed cidina ma oran karto ilaa hadda xataa madaxda sare ee dalka ilaa hadda cidna ma dhigi karto halkaas ayna marayna ama halkaas ku dhamaanaysa waayo waa wax hadda weli talo ku jirta oo wada tashi ku jira waad la socotaan waa dhaweyd waxaa dalka laga aasaasay guddi loo bixiyay madal oo ka kooban madaxda u sarreysa dalka ama heer federaal ha noqoto ama heer maamul goboleed ha noqoto taasoo weli aysan go-aan soo saarin oo wax go-aan aysan ka soo bixin oon ahayn bisha January bishaan hadda berri inay ka wataan malaynayaan tobankeeda in Kismaayo ay isugu tagaan oo bal arrintan ay naaqishaan taasoo maaragtay dhinacyo badan loo fiirinayay bulshada iyo maxaan ku sheegaa dad badan ay iyaguna gees ay u wadeen oo ay leeyihiin maaragtay optionyadan mid ka mid ay haystaan marka inay bal mid dhinac isla duwan oo dhinac isku afkartaan ayaa iyaga laga sugayaa oo bisha 10keeda ayagu arrintaas ay furmi doontaa welina waa waxaan imaan laakiin annaga ka shacab ahaan waxaan kuleenahay dalka taladiisii mar haday miiska saaran tahay inaan inaguna taladeena ka bixino oo wax ku darsano oo niraano taasaa quman iyo waxaan mar haddii lasoo dhigay miiska lasoo saaray cidna lagama xigo qof kastoo Soomaaliya xor buu u yahay inuu wax ku darsado wixii maslaxadda dalkiisa uu arkayo maahan wax shakhsiyeed iyo wax qabiil iyo wax urur gaar ah midna waa maslaxadda ummadda weeyaan marka qof walbana maslaxadda ummadda lagama xigo qof walba wuu ku darsan karaa optionno dhowr oo la soo saaray oo waxaan ku sheegaa ma ahaato 4.5 baa wax lagu qaybsanayaa ama ha ahaato wax lagu qaybsanaya ayaana dhihina baarlamaankii lagu soo xulaya ama ha ahaato gobollada lagu soo xulaya ama ha ahaato xisbiyo hadda aan weli diiwaan gashanayn ayaa wax lagu soo xulaya optionnadaas oo dhan way furan yihiin waa wax ummadda u yaalla ummaduna ay ka talin karto marka hadda waxaan oranaynaa halkaas iyo halkaas ay ku socotaa oo ilo saas ay noqonaysaa weli lama gaarin waa maasan طبعا عبد القادر الشيخ إسماعيل مركان وحافظ بيا أحمد علي يقول وعن سيرة أحسن يا maalintii bay ku dhawaaqeen eraya ay hadda raaci karo oo isku jir bay sheegeen inay haddii ilaahay idmo degaan iyo 4.5 labada arrintaas arrin hadda dee wax isku mugdi ku jira weeyaan
laakiin wax kasta oo la samaynayo dalku wuxuu isaga baahan yahay wax iska nidaam iyo sharci uu isaga baahan yahay qaabka doorashadu waxaa fiicnaan lahayd inay soo baxdo qoraal soo baxo 10 January iyo Kismaayo ayaa lagu ballamay in wax cad oo la raaco la soo saaro waxaas la raacayana wuxuu qeexi doonaa in qaabka wax lagu dooranayo ama baarlamaanka ha ahaado ama guriga sare ha ahaado wuxuu qeexi doonaa oo caddayn doonaa haddii la isku waafaqo sida loo soo dooranayo doorashada sidii u arkaanayso iyo cidda si wax dooranaysa baarlamaanka iyo guriga sare yaa dooranaya waa halkaas ka soo bixi doontaa madaxweynaha yaa dooran doonana halkay ka soo bixi doontaa oo halka anigu muddo badan waxaan jeclaa oo aan mar hore xitaa ku dhawaaqo idaacadaha ka sheegay in dad kan 46 sano aan doorasho gelin codkooda iyo iraadadooda aan bixin inay bixiyaan codkooda iyo iraadadooda oo dadku iyagu wax doortaan laakiin arrintaas waa arrin suuragal weeyay hadda oo hadda maaragtay aad moodid inay laga soo kufiyay waxa fiicnaan lahayd dalka sida Soomaaliya u fiicnaan lahayd 46 sano Soomaali nin shacab oo Soomaali oo codkiisa helay oo wax doortay oo mas'uul doortay oo dastuurku doonayo doortay ma jirin usagana hadduu doorto ilaa 5 laha wax marka waxaad moodaa hadda inaan tiila la gaarin mid kale oo hadda aan tiiyaynu ku soo dhaqmaynay oo dhibta ahayd oo 4.5 iyo deegaan aan xitaa wixii si aanay wali salaysanayn in hadda laynu kala warwareegayo laakiin waxaan rajaynayaa inay soo bixi doonto wixii haddii ilaahay iminka ka dambeeyay inay wax soo saari doonto waxaan raacsanayaa inaan fursad siiyo Professor Ritish asagana aan ka wareysano nooca doorashada ay noqon karta iyo wixii ku kordhinaya insha Allah sabtan dalkan joogay waa yaraa waxbaa la dooranaha lahaa intaan doorashada la gaarin horta waxay dhibayeen magacyada dadka xisbiyada aadoodo xisbiya sax ma ahayn dab iyo holac hal in kul dhaqan dagaal iyo geel la sheegayo hadda runtii xisbi maaha laakiin se waxa waaye waxaan ku soo koobayaa oo isleeyahay markaas doorashada dhexeysa waxa u soo qaatay aqoon ma jirin maanta midda jirta dadka aqoontooda heerkaan ma joogin waa ka hooseysay laakiin se waxaa la haysteen nabad aan maanta la haysanin nabaddaa lafteeda kuma dhigi karo nabadaa la haystay marka la isdooranayo waa la dagaalamaya waxaa lagu dagaalamaya laas waxay ahaayeen baalkii bakoorad iyo dhagax iyo ul wuxuu nooc dagaal waa dhaca laakiin afka iyo waxaan weynin noqona oo aan dagaal weyn ahayn marka waxaan qabaa Soomaaliya inay la timaado xal haddii kale ay doorato erayga xal la gadaal u akhriyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marti sharafta iyo media ardada jaamacadda waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kadib marka hore ilaah baa mahad iska leh inaan maanta aan isugu nimaano ama fikradaheena aan ka dhiibano doorashada 2016 dad badan oo Soomaali ah ayaan aaminsaneen in laga hadlabo doorashada 2016 markaad weydiisan waxay ku leeyihiin dawlad baa la dooranayaa dawlad baa wax dooranayso shaqadan shaqo dawlad u taalo waa shacab maxaa ugu banaan marka dadkaas waxaan dhihi lahaa wax dooranayo waa shacab wax la dooranayo waa shacab hooshuna waxay u taala shacabka waay marka waxaan rajeynayaa insha Allah shacabkuna inay fikirkooda ay dhiibtaan masiirkooda ummadda Soomaaliyeed inay iyagu ka hadlaan mooyee qof kale uma hadlayso haddaan gudub gala in qodobka doorashada 2016 qodobo badan baa la bandhigay ama la soo bandhigay ama magaalada lagu hadalhayaa laakiin fikirkayga laba arin inay noqon doonto rajeynaya hadduu Ilaahay karaam noqdo in qaabka
jeebka nolo geliyey oo 4.5 ka ah iyo in qaab gobolaysi ama degmooyin loo soo doorto kama hor dhaceyno insha Allah laakiin waxaan ka bar sugeynaa in madasha lagu qaban doono 10ka bisha in Kismaayo wixii ka soo baxo laakiin ummad ahaan waxaan nooga banaan inaan ra'yigeena aan ka dhiibano laakiin waxaan rajeynaynaa insha Allah inay noqoto kulankii ama doorashadii ummadda Soomaaliyeed wadadii saxda ah ku taagi lahayd aayahoodna ay ku tashan lahaayeen qofka ay masiirkooda ay ku aamini lahaayeenna ay ku dooran lahaayeen inay noqotaan rajeynaya waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dacwoonaya dad baa waxay aaminsan yihiin wax dowladda federaalka ay soo qorshaysay in lagu qasbay oo la geeyay maamul goboleed ahaan marka anugu mar walba Soomaali midda hadda marka la isku hayo waa degmo iyo shanta beelood waa dariiqa naqaano waxa la dhaho inclusivity-ga ama ku wada jirka ama qabiil walba oo iska arkayo waa mid ay ku caddaho qof walba oo horta Soomaaliyeed uu ku qanacsan yahay wax wanaagsan ma aha wax maxaan ku iraahdaa dawlad iyo qarannimo lagu gaari karana ma ahan laakiin intii badneed annagii qarannimadii Soomaali haddaan nahay waxaa nagala weyn qabiilkii aniga anoo og ninka maxaan ku iraahdaa aan familka nahay tuug dhalo inuu yahay uusan reerkiisa xataa ku filnayn ayaan qabiilkii dartiis ku siinayaa garab ama codkeyga aan ku siinayaa aan leeyahay nin wanaagsan oo wadani ah oo wax yaqaan oo booska u qalmo aan leeyahay intuu ninkii reer hebel qaadan lahaa tuugan qabiilkeyga ahaa ii dhaama horta problemkana haysto kulligeen dhan on dambiilayaal ku nahay waxa waaye waa qabyaalada ilaa dadka Soomaaliyeed ay ogaadaan oo dadka ku danta uu ku doorto aan ninkan anigu ku doorto muxuu ilmaha iskuul lacag la'aan muu dhisay isbitaal lacag la'aan jidadkii muxuu ka qabtay aqoonteeda ma leeyahay ilaa garaadkeen uu heerkaas gaaro anigu Soomaalida intii aan u leeyahay inkastoo qof aad u weyn aanan ahayn intii 45 sano oo experience u leeyahay waxa way qabyaalad nagama dhamaanayso hadda hadii la yiraahdo degmo waxa lagu soo doorto degmadii qabiil kasta oo Soomaali ah waxa way gobol wuxuu ku yahay minority gobolna wuxuu ku yahay majority haddaan fahmi lahayn in kuwa majority-ga ay majority rules la yiri majority-gu inay wax maamulaan laakiin at the same time ayadoo la eegaya qofka minority-ga ahna inuu xuquuqdiisa iyo xaqiisa uu helo Soomaali dhibaatada way ka dhamaan lahayd taasna ma hayno maanta hadii la yiraahdo degmada hebel waxa laga soo doorto waxa way saddexda qabiil ama labada ugu roon ama midka ugu tugtugta roona saddexda qofood soo dirsanayo waa xaqiiqo dacwaduna ma dhamaanayso barina qaarad TV-ga soo istaagayo oo leh anagu kuma jirna kamana dhex muuqana degmadaasna waa leenahay tuulo hebel aan leenahay ma dawladda federaalkan tuulo hebel hoos geysanayna haddaan wax nala siin waa mid xaqiiqo oo wada ognahay dadku haddaysan runta isku sheegin wax ma qabsadaan Soomaali ilaa ay bislaato 20 sano kadib waxaan anigu qabaa inuu qofku garan karo waxa asaga shakhsi ah ilmihiisa iyo dantiisa iyo bari jiilka imaanay waxa ay dhaxlayaan in la sameyn karo anigu marka hadda facilitator-na waan ka ahaa arrimahan muddo ilaa gobolada waan ka soo shaqeynay Somali Women Leadership urur la yiraahdan ka shaqeynaa waxa cad on la isku daalin degmana qaarna aysan ugu dhagin Soomaali qabyaalad ma daynayso ee shantoodii beelood waxa ku qabsadaan hadii taa la waayo anigu waxaan qabaa qoladan baarlamaanka oo hadda kolleyba waxaad iska tihiin curyaaminna idin ma dhihi karnaa wax yar inkastood wax qabateen waxaan qabaa in qoladan la daayo ayaga iyo dawladda dalka say u gaarsiiyaan axsaabta haba yaraatee muddo time ah la siiyo time-ka markii la siiyo sababta aan taa u leeyahay waxay tahay haddaan intaan u noqono shantii beelood kuwa kale oo ooman oo wali dambiil faaruqa watoon akaamadu waxba u galin runta markii la rabo anigu runtaan sheegaya ama dawladda haata ama golaha baarlamaanka ba aday ku baahan oo wali mushaar dhadhamin intii la keeni lahaa oo isna bilaabi lahaa inuu wax gato waxa roon iyaga inta la daayo iyagu ay gaarsiiyaan wadanka xisaabtii la rajiis gareeyo dastuurka qabyadaana la dhameystiro aniga labadaas option aan hayaa oo option-ka dambe waliba aniga ila roon markay run noqoto
baarlamaanka iyo dowladda laftirkoodu qalad ma leh qaladka annagoo dhanaa leh haddaan shacabka Soomaaliyeed nahay sababtoo ah ninkan baarlamaanka yimid ama kan madaxweynaha reality markaan rabno waa lacag uu ku soo gatay positionkiisa nin ku yimid ma jirto ninku markuu wax iibsadana waa shirkad wixii ka baxay uu rabaa inuu soo noqdo intaasaan ku soo gabagabeeyay point fiicanna waa samaysan su'aasha taawada waxay hawlaha hadda joogto waqti inaan u kordhino maxaan u diidaa inaan samayno بسم الله الرحمن الرحيم وقتا فيديو كنا زعيمين وحاولنا الصوماليين وهنا marka waxaan rabaa annaga inaan isku kaashayno annaga midnihiin xildhibaanada hadda shaqeynaya xildhibaanadii hore aan nahay taas inaan ku saxaan rabaa qolyihii hore aan ahayn hadda dowladdan dambe waxba kama niin taas horta waan kuu saxayaa tan labaad waxaa weeyaan horta qofku daacad hadduu yahay oo qalbigiisa ay runi ku jirto soomaalinimo ku jirto islaamnimo ku jirto cabsi ku jirto meesha xaqu ka jira wuu garan karaa sababta waxa weeyaan quluubta rabbi baa maamula saantana ilaah baa wada qofka haddii qalbigiisu sax yahay saanta meeshuu dhigayo rabbi baa u toosinaya waxaa weeyaan xaqiiqdu haddaan su-aashii usoo noqdo qofka Soomaaliga ah oo nadiifka ah oo dalka u baqaya inta uu arkaya waa intaad arkayso war maxaa la isu lugoynayaa oo la isu daalinayaa dastuur lama hayo 2016 kadib lagu dhaqmo dastuurkani waa ku meel gaar baa waagiina lagu yiri 4 sano shaqeynayaa baa waagiina lagu yiri markii la ansixinay odayaashii dadkii Soomaaliyeed ay ansixinayeen waxaa la yiri waa 4 sano wax ka dambeeya oo dastuur la qorayna lama hayo 2016 maxaa lagu dhaqmayaa iyo xagee la aadayaana systemka maanta jira maba ugu jirto qorshaha marka fikradda nadiifku waxay keenaysaa oo arkaysaa war inta laga gaarayo wixii aanu doonayno oo muran aanu ka gudbi karno dadkan ha loo kordhiyo si ay u habeeyaan ama axsaabtii siyaasadeed ha ahaato ama meeshii la mari lahaa ahaato tukana waa kugu darayaa jira waxaa weeyaan ha la yidhaahdo wuu fashilmay systemkani ama baarlamaanka maanta jira laakiin way garanayaan waxay ku fashilmeen meeshii ka qalloocatayna way garanayaan waxa lagu haystana way garanayaan way toosin karaan marka fikraddaas runtii anigu iyo saaxiibkayba horaan uga sheekaysano waa waxyaalo aan qabno dadka wadaniyiinta uu ku jiraa runtii saaxiibkay dadka u ololeeya oo maaragtay Soomaalinimada qabiil ha laga gudbo sidaas hadda gabadhu ay sheegtay oo kale ayuu ka mid yahay marka in badan baanu isku soo qaadnay waa kuwaan in loo kordhiyo si ay dadka jaha ugu dhigaan marka waad mahadsantahay waqtigan gabigiin waqtiga harayna haddii janaayo bilaabato waa bilo xildhibaanada waxaan warsanayaa toddobadii qodob ee maalo hore ku jira bayaankii u dambeeyay intuu Nicholas Kay bixin dadka markii lagu maslaxay Kismaayo la isla aadi doona 15 bisha inta la is afgara waa ku jirnay aan maleena aniga duniyo la yiri toddoba qodob oo degdeg ah soo baxday toddobadaas qodob kamid ah wuxuu ahaa labada golobo inay dhacayaan kor iyo hoos sanadkan annaga haddaan bulshada nahayna inay wax isbedelaan rabnaa inay isbedel dhab ah oo dhaco meel ilaahayna geeyaba in wax isbedelaan wadanka furfurmo wax noo kala socdaan aan jecelna haddaan bulshada matalayna haddaan hooyooyinkina waxaan rabaa qodob kamid ah jiray oo dhahay labada golobo way dhacayaan totally oon ku jirin asaga waxa lagaga hadli doono Kismaayana waxa loo balansanay doorashooyinka degme iyo waati aad la isugu qabtay bal tii la isku soo afgartay dadka u bato nin walba degmadiisa u noqdo war hageeyo dadka ha tashkiiliyo ha yiraahdo ii sheegnimayo hadii laga batana ma raacnaa
haddii aan badanana hanala soo raacay see waxyeelna waa la diray madaxdii dalka wadanka u noqda wadankii degmooyinkiina u noqda warka keena haddana waxaan telefishinana kala soconaa iyo in cid walba ay faafinaysa fikirka ayada ay aaminsaneyd cabdiweliga oo tuulooyinkiis ku wareegayo annaga aan 4.5 keena ka daba wareegayno run haddii la isu sheego inta lagu heshii doonana maaha umana maleeyo laba doorasho kala cayna inay wadankan yar ka dhici karto qayb kamid ah aanba dawladda gacanteeda ku jirin laba doorasho kala cayno midna la dhihi doono degmooyinka laga keeno midna la dhihi doono 4.5 laga keeno inay dhici doonto fikir ahaan anigu ma maleeyo ma aqaan say noqon doonto su'aasheedu waxay tahay waqtigan yar ee noo haray labada golaha baarlamaanka iyo golaha xukuumadda inta in la bedelo ma dhici kartaa waa su'aasheeda midda kale maxaa isdhexgeliyay waxaan qasayba waa federaalkii xuduudihiisa aan sugnayn iyo doorashadii oo degdega sidee loo kala badbaadi karaa arrintaasna salaamintiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh u shaqayn mayso hadduu nin yidhaahdo 4.5 baan 4.5 kaaga dhulkayga la tegaya nin la yidhaahdo anigu degaan baan ahay degaankayga baan dhulkayga la tegaya oo nin walba waxaan doono baan faafinaya waxaas wax shaqaynaya dalku meel kaliya baa loo jahaynayaa meesha kaliya loo jahaynayaana waxay noqonaysaa inaynu sugno inta ay January 10keeda ay ka soo baxayo go'aan waxa la keeni doonaa go'aan midaysan oo laga soo saari doono sida wax loo dooran doono iyo labada qodob sidii laga yeeli doono haddii labada qodob la kala qaado oo la yiraahdo guriga sarena saasa loo dooranaya guriga hoose saasa loo dooranaya iyada waa marxal kale oo iyada waa marxalad taa ka duwan laakiin waxa la isla garanaya waxa kan waliba tiisi oo hadda fidinayo dalku waa dal kaliya waana dal Soomaaliyeed wax midaysan oo Soomaaliyeed in laga soo saaro waa la rabaa waxa la soo saaray waxaan rajaynaynaa in la soo saaro wax lagu midaysan yahay haddii la doono labada guri hal la kala qaado innaguna mahmaha Soomaaliyeed baa waxa tiraahdaa awrka iyo ninka waxa u dhaxaya hoggaanka waa mahmaha aad u heersan awrka iyo ninka waxa u dhaxaya hoggaanka hoggaanka waa garanay waa xariga yar oo ninka iyo awrka isku xidhaya awrkina waa awrka waad garanaysaa xarigaasuna waa xariga wadada loo la raacay marka ariga la fasiro hadda oo aynu macnayno waxa weeyaan su'aalo badan bay mahmahda iska weydiin karaa oo haddana noqon karta sharci Soomaaliyeed waxaanu iska weydiin karaa hoggaanka ka yaa sameeyay goorma awrku la qabsaday in hoggaanka lagu xidho hoggaanka ratigu ma iska raaci karaa meel walba ma u raaci karaa haddii ilaahay awrka iyo hoggaanka isku xidhkooda yaa baray goorma tababar noqdeen marka masalada mahmaahda aynu sharciyeyno awrka qarankii ka dhig ninkana madaxweynihii ka dhig hoggaanku waa sharciga u dhaxay sharcigu wuxuu u baahan yahay qofku inuu innaga lafteena waxa la rabaa inaynu sharciga la qabsano oo inagu dad sharciga la haysta inaynu noqono waa arrin muhiim marka waxa weeyaan dalku wuxuu u baahan yahay muhiimadda koowaad waxa weeyaan marka la leeyahay degaan ha lagu doorto deegaanku wax qeexan buu u baahan yahay marka la leeyahay doorasho hal la galo oo hal guriga sare iyo guriga hoose iyo waxa la sheegayna wax qeexan bay u baahan yihiin inta aan wax qeexan aan ahayn waa sugayna laakiin waxaynu rajaynaynaa in iyagu go'aan ku soo saaraan midaysan laakiin inagu markaynu hadda bulshada nahay oo aynu ra'yigeena ka dhiibanayno waxaynu ku fiicnaan lahayd dadka kan oo ikhtiyaarkooda la siiyo oo la yiraahdo idinku codkiina soo xusha oo idinku doorasho samay laakiin sidii dunida sheegaysa waxa weeyaan waqtiga baa cidhiidhkaas waxa yahay arrin mushkulada marka waxaan leeyahay hal la sugo bal inta yar ayaamaha yar aynu sugno waxa ay soo saari doonaan waa billahi tawfiiq وهي حلبان هذا هو هذه هي كلنا مشترك وهذا هي يعني ما هو يعني هوشان واحد يقوم سهلا هوش انت سكان يقوم سهلا وهو وانا كوريها هذه يعني الدولة يمكن انت ان جامعتها الخبراء اللي ارضيوا اللي مرجع كغلطه وصار في زمره لكن دولتهم يعني شعب يدو كلمه هكذا يدو توقته شعبي علمي كان أي ميل كذا
yaanu arag gabadhaas hadalla fiican bay tiri laakiin midaan ku khilaafsana horta hadallada nagu jiro shacabku ma la yuuraro haddii shacabku wax la weydiiyo waa la isku dhimanaya shacabka yada haddii hadda jaamacadda waa cilmaysa waxaa nagu jira haddaan sheegno oo keliya jaamacadda waxaan ugu fiicnaa xildhibaanada maanta jooga inay joogaan waa dad aan loo dhisin ciidan oo xisbiye mucaarad loo dhisin oo galihiisaro odayaalka loo dhisin oo kuwii mataqaana la aamusiyay intaas caabadii gabadhu inay tiraahdo iyaga walaala iska furayso lixda bilooda waxay keenayaan afar sanay joogaan ma dhisin ciidan nin baa wuxuu yidhi hablaha isku dhaaf haddii aan baryantikin war waxaa lan ku haysaa suu ciidan maaha ma dhiseen mucaarad ma dhiseen waa badilayo albaanka laha leesheegay maanta ay marka waxay hadalka meeshii qofka lagu tixgeliyo aqoontiisa qabiilkana laga baxo waayo qabiilku wuuna daashaday haddaan nahay Soomaali waxaan u hormarnaana waa qabiilka iyo qabyaaladda waxaa kaloo dhihi lahaa in lagu qaybsado qaab goboleedsi lagana gudbo 4.5 qodobka labaad waxaan fikradayda haddii aan ka gudbo waxaan dhihi lahaa qaabka doorashada 2016 in lagu usoo dhiso xildhibaanada qaab deegaan kadibna baarlamaanka ay soo doortaan madaxweyne hogaamiye dalka 5 sano ay soo socoto wabilaahi tawfiiq waxaan moodaa inaan waqtiga maanta aan joogno aanan waxaan noo haray waa mudaya waddanka Soomaaliya waxaad moodaa 25 sano lasoo dhaafay inay wax ku qaybsanayeen qaab qabiil haddaan nidhaahno maanta oo nooga hartay muddo yar oo kooban aan bedelna qaabkii qabiil waxay la tahay inaanan ka midadhayn karin taas waxaan rabaa horta shacabka Soomaaliyeed nahay waxaan raadinaynaa waqtiga yar kooban dhanama male annaga aan ka jiifanay waxaa la rabaa mar hore inaan dadka xisbiyadu inay ku dadaalaan sidii loo baasgarayn lahaa asxaabta xisbiyada badan inay xisbiyadu ku dadaalaan xisbiyadu inay sameeyaan si iskaashi ah oo Soomaalinimo ah oo ay ku soo jiitaan shacabka Soomaaliyeed oo iga dhaadhiciyaan ra'yigooda iyo mabaadi'da ay qofku xoriyay waqtigiisa xorna ku gaari karo qaab siyaasadeed oo isku gaari karin qaab qabiil marka ra'yiga kooban waxaa dhihi lahaa horta sanadkan waa waqti kooban maadaama aan 25 sano kusoo qaybsanaynay qabiil ilaa haddeeruuna daba socda ilaa waqtigan waxaana daba socda xaq lama rabee waxaan wadnaa xaq ma ahee waa xaq xal hadda waxaa la wadaa waa sidii wey marka hadda dhibka yaallaa wuxuu yahay horta xisbi maantay la dooran karo oo la oranayo xisbigaas axsaab baa la aadayaa ma jirto sababta waxaa weeyaan xisbiyadii ma sharciyeysna mana diiwaan gashana systemka maanta jira oo dalka ka talinaya ayaana diiday baarlamaanku number 1 uu ka yahay in la diiwaan geliyo way hor istaageen sharcigoodii inay soo saaraan way hor istaageen in la xadado oo xisbiyaal kooban dalku markaas waqtigan oo kale waxay ahayd ka hor in xisbiyaduna kooban yihiin sharciyeysan yihiin meel walbana geeyaan marka sidaas daraadeed waxa weeyaan hadda على الأقل الدستور بايانا دستور كيالنا إلهي هذا وحو كقرية 4.5 كما قرنا دقموين كما قرنا معمول قبولات كما هذا مركز هدين لا يسقف صدق وحين نقول يسوى دوغان دونتان إلا يرادان شرعي قول نقول شرعي من وحو لي 4.5 وإن لقى بحار فالوين احتراولي باش اللي لقى بحيلهانا ولي لما قاري marka sidaas daraadeed midda xalka kaliya hadda ay isku raaci karaan
oo hadda haddii la isqabsado loo carari karo waxaa la leeyahay halkaan inoogu qorantay 4.5 halkaasi usoo noqonaysa waa sidaan anigu aaminsanahay waa mahadsantii ee la yaraa xisbi la yaraa hadhicin dhalinyarada taa waa la dhacay xildhibaanada kaliya ma wax la dhacay dhalinyarada taa waa la dhacay dhalinyaro waxay timid qorbo joog ah oo madax xiiran markii inaan wax ka sheego mar in Afrika hadii mar laakiin xisbigaas ka socdaa waxaa rabaa xildhibaanada hore inaan weydiiyo 4.5 maantana lagu celcelinayo 4.5 waa xisaab marka 4.5 ka xaguu ka yimid yaa noo keenay idinka ma keenay kuwan iga horeeyay ma keenay Nicholas Kayma hadda noo keenay mise dad kala soo dhiibay la soo xawilay inta soo dira hadalkoodii iyo buuqii batay waa waxa la sirisay wax loo qaybiya waa hadda xildhibaankii Cabdulqaadir iga horeeyay sidoo ka hadlayay dabeedna waa la fikiray 4.5 baa la keenay 4.5 waxa la yiri xaq ma aha waa xal marka sida lagu keenay ma ahayn si sax ah oo maaragtay beel laba ma ahayn meelay hadda waafaqsan tahay ma jiro xeer caalami baana waafaqsaneen sharci islaam baana waafaqsaneen xeerka Soomaalida oo soo jiray oo aynu naqaaneen ma waafaqsana midnaba ma waafaqsana axsaab ma aha waa wax aad is oranayso Soomaalida dib ay u dhageysayo waa qabiil marka iyadu ma waa qabiil weeyaan marka aadar gacaliye waxa weeyaan arrintu ma ahayn wax nidaam sax wax ahayd wax maalintaas lagu wada fadhiistay oo wax lagu qaybsaday oo la rabay in laga baxo dawladihii jiray oo dambe oo la magacaabay dhamaantood mid walbana markay doorashada galasay waxay doorashada ku galasay wixii maanta ka dambeeya one man one vote sidii xaadsigu sheegayay baanu gaarsiinayna wax allaale wax mar walbana iyadoo one man one vote la rabo in la gaarsiiyo baa mid walba waqtigu ku imanay markaas wax la leeyahay war 4.5 keenna ma ku noqonna kan 4.5 Soomaali wax u danana ma dhalinyarada wax u dana ma aqoonyahan wax u dana ma nin aqli leh wax u dana ma qof Soomaali u dan leeyahay ma jiro sababtoo abaal 4.5 ku markuu guud ka soo dago waa socdaa sidoo u socda xaafada labada oday oo walaalaha oo soo dhaxgala waa wax aad laakiin markaad meel aad u baxsato weyd oo afarta beenato hada meel walba la soo ciriiri oo la yiri hadaynu degmooyin ku sameeyno degmooyinka sida la sheegay dastuurka kuma qorra oo 4.5 bayna oo qoran xagee loo carara waxay noqon doontaa in loo cararo 4.5 oo aan Soomaaliya dan ugu tirin Soomaaliya dan waxay ugu jirtaa in la gaarsiiyo qof iyo cod oo ninkay doonayaan doortaan oo sharciga doonayaan doortaan oo marka iyaga ilaashanaya iyaga difaacanaya sidaas weeyaa marka adar sidoo ku yimid xisbiyana maaha waa nooc caankaas wax u danana maaha laakiin marka meel aad u baxsato weydin dib waxa ku noqonaysa inaad ku khasbanatiin qaad Mr. Ahmed xildhibaanada xildhibaanada dhamaan marshafka soo qayb gashay marshafkan qaaliga ah su'aasheeda ma badna waxaan rabaa hal su'aal inaan weydiiyo maadaama xamar la isku afgaaran waayo hadda 10 bisha loo balansan yahay Janaayo in Kismaayo ay ka dhacdo oo wilina aan hadda saadaashaysa muuqan oo la isku leeyahay deegaan ama 4.5 ma noo fiican tahay inaan u sii daayno 4.5 keena si hore waxaan u baranay 4.5 ka أنا waxaan kamid ahaa dadkii oo ka soo aruurinay gobolada ra'yiga koonfur galbeed banaadir waxa laga aruuriyay 4.5 marka laga reebo Jubbaland iyo Galmudug Puntland markaas ma dhisneen markii la aruurinay Galmudug marka 4.5 keena xal ma oo tahay hadii oo yaani maadaama oo hadda aan leenahay la isku haysto deegaan iyo 0.5 marka xal ma ka dhigin karnaa inaan 4.5 yaani waxaan oo hagaagaan aan ka dhigano xal ma noqon kartaa salaam calaykum waddankeena waad la socotaan deganaansho ma jirto mar haddaan deganaansho jirinna waxaa la yidhi caqligu cadaalad ma xukumi karo ilaa uu deganaansho helo waqti degan horta wax kastoo hadda soo baxaa cadaalad ma noqonayaan waxay noqonayaan wax laga wada dhawaaqo sidii gabadhii ay duniya ay sheegaysay wax kastoo la keeno dacwaad ogaan doontaan bilowda
ummaddani waxay ku wada qanci lahayd oo ku wada aamusi lahayd haddii xalka ugu roon oo hadda maaragtay nidaam ahaan iyo adduunka sida ka jirta dhinaceeda haddaanu aadno in la keeno xisbiyo oo xisbiyo la isku doorto qofkii wax waayo iyo qofkii wax helaaba nasiibkiisu ku qabilaayo ku aamusi lahaa laakiin hadda waxa weeyaan arrintan 4.5 waa arrinta keliya oo hadda la wada dhibsanayo Soomaali oo dhan ay dhibsanayso laakiin haddana waa arrinta keliya oo haddii taas wax lagu keeno lagu wada aamusayo sababta qolo kastaaba wixii ay baratay way helayaan waa midda keliya hadda lagu wada aamusin karo oo ay ku wada aamusi karaan marka saasaan su-aasha ku soo qaaday waxaa la yiraahdaa sideedaba inaysan colaad jirin cadaaladna joogto macnaheedu annaga waxaan u qaadanaa u maleynayaa inaysan colaad jirin bas labada qaabba oo ah midda deegaanka iyo midda 4.5 ba waqti xaadirkan cadaalad ma aha haddaysan jirinna ilama muuqanayso in Soomaaliya xasilooni ay kasii jirayso horta midda deegaanka suuragal sinaba waqtigan kuma ahaan karto waa fikirkayga raalli hada cidiidida waxaysan raalli ku ahaan karin waxay tahay deegaanada oo dhan ma jirto tirakoob sax oo laga hayo maxaa la jira degmooyinka xaduuda mala qabaa'ilada degan dad u afduuban yihiin qabiil ayagu laandheero soo sheegay soo qaabka haddii hadda la yiraahdo deegaan hal la qaatan qaabka lagu ururiyo waa qaab cadaalad darradii lagu sii dhaandirinayo dee maasha dad gooniaba ay lahaanayaan inta kalena cagta hoostiisa si rasmi ah loo sii gelinayo taas geeskaas iga oolaysaa laakiin midda 4.5ka 4.5kan waxaan oran lahaa waqti xaadirkan haddiiba la yiri dawladdaana waqtigeeda looma kordhinayo 4.5ka iyadu in la casriyeeyo si hadda maalmahanba laga dhawaajinayay oo halkii oday uu soo xuli jiray jifadiisu soo xuli jiray in laga dhigo in jifada dhan ay soo xusho clan constituency wax la yiraahdo ay soo xulaan sidoo kale ayadana 4.5 cadaalad darrada kale ka jirta waxay tahay 0.5 ka laftirkeeda marka laga soo tago dhaxaltooyin noqotay jifooyin baa weligood khinaadeen marka xaqiiqada wax xaqiiqa looga jawaaba markaynu hadda 4.5 fasaxno oo niraahno 4.5 iyo odayaashii idinka idin taal laba arrimood waa suuragal in iyagu inta dhexdooda garnaqsadaan ee qoladii hore u daayaan oo yiraahdaan war qoladii hore awalba qaadan jirtay ha loo daayo sidii qoladii u dulmanayd iyo in la isu celceliyo oo la yiraahdo bal maanta kuwa kana muddo oo manaaye kuwa kan ha loo celiyo laakiin mar hadday 4.5 tahay odayaasha xukuma inagu waxaynu dhexdhexaadin karro iyo ra'yaynu inagu ka dhiiban karro ma jiro wabillahi waayahay horena waxa loo yiri isma doorin gaalkan diriya daarta kii galay dusha midabka Soomaali baa dugulka moodaa misna laguma diirsaday qalbigu waa dirkii Faranji dhibta Soomaalida haysata oo tabaha iyo xeeladaha gumaysiga aad iyo aad ay u badan yihiin laakiin waxaan rajaynaynaa haddii alla yiraahdo saxaafadii aba naloo kiciyo saxaafadii laga hor yimid mar haddii saxaafadda loo hor yimidna wixii ay qarin jirtay iyo ay macmuus jirtay ayadaa banaanka sheegi doonta ukun waqtigeeda haysataa waxaa la yidhi dhagax way jebin kartaa madaxtooyada waxaa ka socda qof ku faraxsan ma laha wiilka sabigaha ka hadlaya qallooca iyo dhibaatada ka taagan mana loo malaynaayo in maaragtaa inta ay sidaas tahay in la helo barnaamij isku toosan aniga arrimaha NGOska iyo UNDP-da meelahaasaan siyaasad qabiilaysan waxaad moodaa qabiilka madaxiisa sare inaan fariisanayno oo aan kii hoose oo salka ha ka soo guurayno oo kii sare fariisanayno waxayna u egtahay qaabka markaad fiiriso qaabka hadda siyaasadda la isu jiijiidayo oo ama ha noqoto 4.5 kii hore oo iska cambalaqsiga ahaa ama ha noqoto midkan hadda la yiraahdo degmooyinka iyo gobolada waxaan bilaa runta ka sheegay wuxuu yiri degmooyinka iyo qaabka haddii la soo xulo la yiraahdo waa fahmi kartaa dadaa xoog isaga haysta laandheerayaal iyo qaabaad isu haysta iyagoo inay maxaan ku yiraahdaa ka taliyaan qof kastana wuxuu rabaa waxa uu doonayo wax qabiilkiisa ula raba inay tahay oo uu doonayo taa waxaa ka daran sada oo ah August 2016 markaa gaarno xaaladdeena say ahaanaysaa maxaa gacanta ku hayn doonaa haddii aad saadaalin kartid waxay noqonayso ma waxaa haysan doonaa dawlad oo 4.5 lagu soo xulay baarlamaan waa wax la dooranaya horta taas ina xaqiijiya rabaa madaxweyne baarlamaan unbaa sii dooran doono mise baarlamaan oo deegaan lagu soo xulay kaas maxay noqon doontaa insha Allah ilaahay diir Cabdiqaadir aan ku bilaabayo xilliga Cabdiqaadir Sheekh Xasan hadda inaan maxal ka raadino samir ayaan anigu soo jeedin lahaa samir
inaanu xal ka raadino markaan marba meel bay maraysay markaan inaanu samir xal ka raadino labada arrimood oo naga maqan oo xal inoo diiday oo maxaan kuu sheegaa inaan wax noqono noo diiday waa run la-aan iyo cadaalad la-aan way run iyo cadaalad baan u baahannahay sidaas daraaddeed intaanu gaarayno inaanu samir kaashanno yaanu samraynaa arrintu meesha ay marayso inaanu ku samirno intii markaan hawsha gacanta ku haysana aanu u dayno wax khayrana aanu ka rajayno dhinacyadana la qabanno sababta waxaa weeyaan weel buuxa oo buux dhaafay qof haddaad kula qabsato muxuu samaynaya waa daadanaya ama waa bilqanaya ama isdhin baa imaanaya hadda meel buuxday maraysa dulan baa naga buuxsamay cadaalad daraa naga buuxsantay jid la-aan baa naga buuxsamay sida uu u sheegay muuse shiikhna waxa weeyaan waxaan annaan annagu shaqo ku lahayn ayaanu fulaynaynaa oo naloo dhiibay gacanteenna nalagu aasaya marka sidaas daraaddeed bal cidda hadda na hor socota inaanu bal u samirno ilaa balqashadan weeya iyaga laftigooda waxay ku lumayaan oo jahadu kaga lumaysaa laftigooda bal inaynu u sugno oo ay kow ka tahay samirka eenu qaadanayno 2010 waxaan ku sheegaa bishaan January 10keeda shirkii la isugu imaan lahaa aniga laftigaygu waxaan ka qabaa shaki ma dhacaya laftigiisa wixii ka imaan lahaa waa gaar horta ma isu tegayaan allah soo siiyo hadday isu tagaan bal wixii ka imaanaya meeshaas inaanu sugno oonu u samirno wixii ka yimaada oo ayagu soo saaraanna bal aan la garab galno oonu la wadno si maaragtay ilaahay aynu tawfiiqda saarno waa mahadsantihiin guud ahaan intaa ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijkii gaarka ah ayaan ku eegaynay dood cilmiyeed ku saabsan hanaanka doorasho ee ka dhici kara geyga Soomaaliya 2016 oo lagu qabtay jaamacadda Indian Ocean University ee magaalada Muqdisho barnaamijka waxaa idin soo saaray anigoo ah Xasan Kahye dhanka farsamada waxa uu ahaa Cabduqaadir Carab kaamiradana Naqiib Axmed Naqiib intaan barnaamij noocan oo kala ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo amaan Allah